wanaagsan daawadayaasha qiimiga qadarinta mudan oo ilaahantiima meel kastoo joogtaanba waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Halkani waa stuudiyaha Universal ee magaalada Toronto oo idinle waa barida wacan. daawadayaal Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa idin soo gudbinaya farsamada quruxda badan iyo kaamarada iyo intaba daawanaysaan. dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa isugu yimid fagaaro ku yaala magaalada Toronto waxayna soo dhaweynayeen ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ah mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqasho ku yimid magaalada Toronto. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka soo qayb galay shirka qaramada midoobay magaalada New York oo socda adduunka ama golaha guud. haddaba dadkaas faraha badan waxaa mikrafoon kala dhex qaaday wariye Anwar Shariif ee daawasho wacan. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan naga daawanaysaan TV-ga caalamiga ee Universal. xafladan quruxda badan ee aad u jeedaan waxaa lagu soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiweli Cabdi Gaas. oo caawiya soo dhaweynaysaa. yaa soo dhaweynaysaa caaw. waxaan soo dhaweynayaa Cabdiweli Maxamed Cabdiweli Cali Gaas. ما شاء الله. اوكي سوي aragtaa marka xafladda quruxda badan la caawa aad ku soo dhaweynayso ra'iisul wasaaraha aniga waxaan soo riyaamba waxaan soo dhaweynayaa xafladdaas qurxoon waaya adna sharaf iyo wanaag baan u aragnaa iyo siyaado aanu raadinaynay haddana weli sharafteedii ma sii dhicin markii isagu yimaado ashcaruhu dhacayaan ma sha Allah waaya adna eedda sidee u aragtaa magaca rajayna galinaysa magaca eedda farax waa la yiraahdaa rajayna galinaysa dalkii inuu noo dago baan rajo ka qabnaa marka calaamooyinkii waxa weeye dagitaanka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hallo sarakaco waxaad mudane Cabdiweli aad ka arkaysaa capacity-ga howlkan la kireeyay in uu ku yaraaday ka soo qaybgalayaasha mujtamaca Toronto oo qaarkood ay u suuragali weysay inay halkan yimaadaan iyadoo ay ugu wacan tahay yacni qaarkood in looga soo tagay hooyooyinkii iyo odayaashii inay uga soo tageen gabdhihii inay guriga isha ku sii hayaan inta ay xafladan qaayaha la ka qayb galayaan marka qadarinta tul lamida ayay ku soo gudbinayaan marka xafladeenan iska bilaabinayna waxa mudan inaan xafladan qiimaha leh juhdi fara badan uu ku baxay sida u quruxda badan qofkii hogaaminayay ee hogaanka u hayay walow ay dad la shaqeeyeen oo anaga naftigeena ka mid ahay laakiin robotka aan isku sheegay ninkii aniga iga dhigay ee computerka wax igu shubtay baan u yeerayaa Cabdi Xaashi Saad Cabdi Gab Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta marka ugu horeyso waxa weeye hadii Ilaahay idmo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin waqtigiina qaaliga ah ee aad noo qoorteen anagoo ognahay tomorrow inay tahay maalin isniina oo shaqo iyo school ay leedahay waa ku mahadsantiin taasna waa midda uu muteystay Prime Minister Cabdiweli oo naga tirsan xushmad u heesaan
u timaadeen waqtigiina qaaliga waa idinkaga mahad celinaya aniga oo ku hadlayo guddiga qabanqaabada magacooda far kaliya foor ma dhaqdo laakiin maanta wixii dee 2 bir baan waxaan ku qabanay adinkan waana kaalmaysan haddaan kaalmeyn lahayn aniga wax ma qaban lahayn ma hadda koowaad waxaa iska la gabdhaha Soomaaliyeed oo xoogooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda galshay midda labaadna waxaan u celinaa marka guddigii qabanqaabada marka labaadna waxaan leeyahay wafdiga uu hogaaminayo Prime Minister Cabdiwali iyo Minister Cabdiraxmaan Xoosh Maxamed Cali Ameeriko Cali Xareed Axmed عشرة وفد استراد بلان وحكمدين وبارلمنتريان وامباسادور وكابينت مينستر او برايم مينستر كودن عاو فريد دد نغسي بدن مجر عاو وانا نينكي ugu horeeyay ee 20 sano ee la soo dhaafay ama prime minister noqdo ama noqdo president history sameeyay ee Canada noogu yimid asigoo dawlad Canada u socdo shacabka Soomaaliyeed inuu yimaado sidaan hore idinku ballan qaadnay haddana waxaan gelayaa inaan odayaashii ku hadli lahaa magaca jaaliyadda inaan u yeero Cabdiraxmaan Sheekh Ciise fadlan ku soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمود وحملين يا رير كان بنمو إنه قرب جري يقصيه مركا I welcome that haddana xoogoo ayaa isleeyahay baarka kor buu u qaaday marka I will take that challenge too marka asalaamu calaykum mar kale kulligiin mudane ra'iisul wasaare Dr. Cabdiwali Maxamed Cali good to see you again marwa hodan Saciid Ciise oo iyadana la joogta ku soo dhaw magaalada Toronto sidaas oo kale xubnaha wafdiga Prime Minister kamida waxaan anigoo ku hadlaaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee hadda idin hor fadhida idinku soo dhaweynaya magaalada Toronto iyo agagaarkeedaba dad ka yimi GTA waxaan idin leenahay mar kale ku soo dhawaada magaaladan oo ah magaalo caan ku ah Canada kaliya ma aha adduunka laftigeeda ahna udub dhaxaadka dhaqan dhaqaale dalalka North America mudane Prime Minister jaaliyadda Toronto maanta aad hor fadhido waxay caan ku tahay in markasto una heelan yihiin inay soo dhaweeyaan madaxda qaranka iyo dadka qiimaha iqaayaha ku leh bulshooyinka Soomaaliyeed sida madaxda dawladda haday noqon lahayd mid dawladda dhexe iyo dawladaha goboleed in garadka fanaaniinta caanka ah saraakiisha sare iyo dadka ka mudane qiimaha ku leh bulshada Soomaaliyeed sidaas daraadeed soo dhaweynta adiga iyo wafdigaada waxay ku hiranaysaa tixraacaysaana dhaqan wanaaga oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto degan leedahay laguna yaqaan
markana waxaa u yeeraya ambassador maxamed cali americo inuu laba eray halkan ka yiro. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن رئيس وزراء عبدولي محمد علي يمروديسا مدن وزير عبد الرحمن حوش مدن رئيس برلمانكا مرت شرفكا مدن يمروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa waxaa aniga sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo xafladdan loo sameeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo ay sameeyeen reer Toronto oo aan aniga ka mid ahay. ra-iisul wasaaraha waa si loo sheegay waa reer Toronto waa dad Soomaalida aad ugu dheer sida uu sheegay xildhibaankana waa markasta waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan ay taageeraan dowladda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan xogaa ka hadlo dhibaatooyin aad ogtihiin oo ka jira waddanka gudihiisa inkastoo speechka meenkiisa oo ra-iisul wasaaraha sheegi doono laakiin waxaan rabaa in yar inaan ka taabto dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah gaar ahaan kuwa jooga ee waddanka Kenya. inkastoo marar badan aad ka aragteen tviyada iyo kala maqasheen raadiyaasha laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto dhibka haysta anaga safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya. waxaan markasto aan booqanaa aan soo fiirinaa dhibaatooyinkoodana aan soo ogaanaa gaar ahaan qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. waxaa jira in dhib badan ay qabaan gaar ahaan aan dhaho ardayda gabdhaha. sanad ka hor maraan tagay xeryaha qaxootiga ayaa waxaan soo booqday iskuul ka mid ah iskuulaadka ku yaallo xerada qaxootiga Dadaab. iskuulka markaan tagay ardayda badankooda waxay ku dhigtaan dibadda bannaanka oo geedaha hoostooda. waxaan arkay in wiilasha iyo gabdhaha ay wiilasha badan yihiin oo gabdhaha ay aad ugu yihiin galaasada. waxaan weydiiyey macallimiintii oo aan ku eri gabdhihii ardayda ahaayeen aaway. intuu ii jawaabin ayaa waxaa gacanta qabatay gabar yar oo ii sheegtay inay jirto 12 sano. waxay igu tiri adeer anaan kuu sheegayo sababta ay gabdhaha kale ee galaaska u imaan waayeen. waxay igu tiri waxaan rabaa inaan kula hadlo si gaar ah meel geesi ay bixisay. waxay weydiisay adeer caruur ma leedahay oo gabdhe ma dhashay oo jira 12 sano ka badan. gabadhii yareed waxaan ku eri haa. waxay ugu tiri gabdhaha waxay u imaan waayeen gabdhahaaga weydii. waxaa mana waa garan kartiin waxay ka wado gabdho yaryar. qof kasta Soomaaliya wuu dareemi karaa inay gabdhahaas masaakiinta ay iskoolka u imaan waayeen ayagoo la ama heli waayey sanitary pads. shame weeye ceeb waaye. laakiin waxaa ilaahay mahadiisa in markaan ku soo laabtay Nairobi oo ganacsato Soomaaliyeed ay gacan naga siiyeen ilaa haddeertaana bil kasto ay u weebiyaan ayna u diraan gabdhahaas. markaan booqday 6 bilood kadibna ay noqotay in galaasyadii aan ku arko in nuska nus ay gabdhahayeen. waxaan kaloo rabaa in arrin kale oo la yaab leh oo aan la kulmay inaan idinla qaybsado si aad u dareentaan. waxay ahayd 3 months ka hor ayay ahayd xerada qaxootiga Dadaab ayay ahayd. waxaan la kulmay islaan waayeela oo ii sheegtay ayadana inay jirto 65 sano. itri waxaan soo socday 15 maalmood oo ay soo lugeynaysay ay la socotay 2 gabdhood yaryar oo aan dhihi karo ii sheegtay inay jiraan 14 sano midda kalena jirto 9 sano. waxay igu tiri waxaan soo lugeynayay 15 maalmood. waxay kale igu tiri aniga iyo gabdhahaas aan ayadu ahay waana la kufsaday. at this time iyo age in waxaas dhacaan ay sameeyaan dad Soomaaliya waa xaraam. Soomaalima maaha
muslima maaha waa wax laga yaqsado xalay waxaan daawanayay CBC stationka waxaan soo saaray dad ay wareysteen last week gabdho ayagana taasoo kale sheegay in la kufsaday ilaahay hanaga qabto kuwaas warka inaan ku dheeraado ma rabo waxaan idinku codsan lahaa keliya walaalihiin ha loo gargaaro dadka way dhibaataysan yihiin haddaan annaga wax isku qaban cid noo qabanaysa ma laha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu batuulo fadlan ku soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتي شرفته noogu timiday magaalada Toronto habeenkan taariikhda galay ee muddo 22 sano ah dawladda aan ku riyoon jirnay caawa prime ministerka uu noogu martiyay ku soo dhawaada magaalada Toronto si kale iyo laaba inta kadib waxaan jeclahay sida dadku way iga bartay inaan suugaan ku soo koobo wixii aan dhihi lahaa oo inta dheer dadka oo heshiis wada noqdayo dadka oo heshiis wada noqdayo wada degi jooga nabadii la dayriyay markale dib ugu raacdaynta dastuurka iyo xeerkii bulshada lagu daryeelayay dawlad weyne Soomaaliyo danaha guud dhowrta adiga lagu doortayo la isku diidayne dadaalkiyo kartida aad wade dunida meerayso warkaaduna deeqsiisay daacad ugu sheegtay diaspora da Soomaaliyeed way ku diirsaneen dadkii iyo dalkii naga burburay laguna danoobay duruufaha adag ka jira deegaanka Soomaali isku duubni bay doonayaan inaan ku doonaye qalbigood dib loo xaadhayo dawala la gaaro dadku waa walaale wixii dabiinu qolaya on doonahay wada jirkiyo nabadda loo duubtay inaad uga dadaashaan ayaan kugu dardaraa cabdiraxmaan xoosh oo ah wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta marka intaanan isaga u gudbin isaga ayaa waxa aniga roolkayga halkaan ku ekaan doona isaga markaan u yeero isaga ayaa prime ministerka soo dhaweyn doona assalaamu calaykum waraxmatullah markii ugu horeyso aad u mahadsantihiin reer Toronto sidii weligiin idinku ogaa inaa u soo baxdaan Soomaalinimo idinkoo soo dhaweynayo prime ministerka Dr. Cabdiwali Maxamed Cali expectations keenana aad buuba kor u maray maadaama aan ka tirsanaa aan tagay wadankii wixii aan soo arkay inaan idin sheegaan horta markii ugu horeyso أنا waxaan soo arkay waxa rajada horta inay soo noqonayso markii aan tagay xamar waxaan u tagay prime ministerka oo kaligiis ah wasiiradii baxeen wasiiradii hore naga horeeyay oo by the way dad aad u fiican ahaayeen runtii kaligiis ah laakiin dhibaato cusub wadanka ku soo kortay oo abaar in mataqaanaa la sheegay abaartii inay tahay abaartii ugu xumeyd oo ka dhacdo wadanka yani 60 sano 70 sano isla markaasna ay magaalada xamar ku soo qulqulayeen kumanyaal kun qofood oo ka soo qaxeen koonfurta yani you can imagine dhibaatadaas oo kaleeto annagoo markaasna dagaal ku jirnay taas oo socoto oo international community-gana ayagana responsigooda ay bilaabeen inay soo galaan annagana aan lahaynin
resourceskii ama wixii wax lagu samayn lahaa aan lahaynin ayaa haddana waxaa dhacday nimankii al-shabaab ahaa waa ogeyn inay liitaan oo ciidamadeenna iyo amison si fiican bay mataqaanaa ula dagaalameen laakiin ma u malaynaynin sidaas dhaqsi ah inay magaalada uga baxayaan nimanka niman xun waa notice xataa waa noo diiday inayna siiyaan 2 weeks ah mugta markay ka baxeen markay ka baxeen dhibaato horlaa nagu soo kortay tii abaartii oo taagan tii mataqaanaa IDPskii waddanka xerihii qaxootiga la furay shabaab markay meesha ka baxday xaafadii ay ka baxeen in la geeyo police iyo military iyo mataqaanaa xukun madani ah loo sameeyo waxaasoo dhan waxay u baahan tahay dhaqaale iyo waxay u baahan tahay iyo shaqo fara badan ay u baahan tahay marka prime ministerka judgment fiican uu sameeyey isla markiiba maalinta ay baxeen maalinta ku xigta wuxuu ku dhawaaqay inaan sameyno emergency kulan wasiirada ah kulankaasna waxaa ka soo baxay in qof aanan ahayn institution dowladda ka socdo oo aanan dowladda soo magacaabin inuusan xaafad intuu taga dhihi karin anaa ka taliya isla markiina waxaa loo diray inaan soo gaabiyaan rabaa waxaan rabaa inaan idiin sheega keliya barnaamijkana hor yaallo oo ah arrintan naloo xilsaaro 4 qodob ah oo ah constitutionka dib u heshiisiinta securityga iyo dowlad wanaagsan inaan sameyno ani labada horaa portfoliodeeda ah labada ugu waaweynna waa waxaad tusinaysaa prime ministerka wuxuu ugu qabaa confidence weyn ugu qabaa mugta marka waxa waaye constitutionka wax anaga iska keensanayna ma aha waa u baahannahay civil warkan waxaana geliyey constitution ama shuruuc annagana kala hagta shaksi ama beelbeel ama magaalo oo dhab ah ma soo marin weli marka inaan samaysano waa maxay hadda markii dhibaato dhacdo civil war siduu u dhacay qof walbaba qabiilkiisa ku noqonaa iyo maleeshiya laakiin halkan maleeshiya uma noqono dhibaato hadday dhacdo xuquuqdaada waxaa u raadsanaysaa maxkamad oo xaq ah marka inaan taas samaysano waa qarnigii 11 sanaad lagu jiraa ma ku noolaan karno mataqaanaa saan hadda ku noolna si aysan u dhicin civil war kaleeto uusan u dhicin waa inaan sharcigaas samaysanaa sharcigaasna waa in mid annaga dhan naga wada imaanaya waa nin hal qolo ma laha hal magaalo ma laha annaga dhan inaan ka doodno aan la nimaadno hadda drafti baan haynaa waan sii wadaynaa sanadka intuu ka dhammaado inaan baasgaraynaan rabnaa midda waxaa kuu soo hartay ahayd waxaa kuu soo haray reconciliationka ama dib u heshiisiinta madaxweynaha prime ministerka gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada kulli waxay isla garteen waxaa waaye dib u heshiisiintii hore loo samayn jiray say ahaan jirtay in laga leexdo oo ah 20 sano la soo dhaafay niman hub haysta ayaa loo yeeri jiray warqadaha laga saxiixi jiray warlords ah lacag badan baa ku bixi jirtay waa la heshiiya la dhihi jiray dagaalkiina meeshuu ka bilaaban jiray maxaa yeelay dib u heshiisiin dhab ma ahayn marka dib u heshiisiinta aan rabno waxaa waaye dib u heshiisiin ka bilaabanayso tuulooyinka iyo xaafadaha iyo miyiga iyo meelaha because conflictigan dhan wuxuu u badan yahay conflict ka bilowdo biyo iyo daaq iyo mataqaanaa beero soomaalidana sida zahro sheegaysa waa hal qoys waa laakiin resourciga ku yar dadka isla deganaa mar walba dagaalamo waa dadka isguursado abtiyaal iyo adeero isu wada ahwaana laakiin waxaa keenaya waxaa waaye resourciga yar annagana ma barin sidii dadkaas loo gaarsiin lahaa habkii ay ku heshiin lahaayeen ama habkii resourciga ay haystaan oo yar ay u weynayn lahaayeen si aan loogu dagaalamin marka taas inaan ka shaqaynaan rabnaa midda kale ugu weyn waxaan rabnaa in aan wasaaradda tacliinta maybe inaanan 6 bilood ku samaynayn maybe sanadkan inaan samaynayn laakiin inaan bilowno hadda seedska ama mirihi wasaaradda tacliinta inaan dhahno waa inaad samaysaan curriculum ama manhaj ku salaysan nabad iyo human rights xuquuqda bini'aadanka ilmaha iyagoo yaryar in la baro xuquuqda bini'aadanka in la baro iyo tolerancega maxaa yeelay marka annaga aan yarayn waxaan ku soo koriyay adiga qabiilkaaga qabiil kale ka fiican qofkaas waa dili kartaa ama hero waa noqonaysaa
marka inaan anaga barno waa qofka ilmaha iyagoo yar inaan barno waa haddii aad nabad ka shaqayso adigaa heroga ah ya qofka oo wax dilayana waa criminal inaan soo barno at any rate Toronto waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo our Prime Minister Dr. Abdiwali Maxamed Ali. Thank you. runtii farxad weyn bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladan aad nagu soo dhaweynaysaan aniga iyo wafdiga ila socda mahad gaaran u jeedinaya qabanqaabiyaasha xafladda runtii aad baan ugu farxsanahay sida walaaltinimada leh wadaninimada leh qiirada leh ee aad noola hadasheen noona soo dhaweyseen dad badan baa meeshan ka hadlay runtiina wixii aan oran lahaa iyadoo waana ah iyadoo buraanbura iyadoo oo heesa ah siyaabo kala duwan baa loo yiri marka waxaan maleeyahay wax badan ii haray ma jiraan waxaan ku bilaabayaa marka warbixin inaan ka siiyo wadankii tan ugu horeysa ka hadlaya waxa weeye arrinta haddana haysata emergency ka jirta wadanka oo ah abaaraha wadanka jira maanta saad la socotaan maanta waxaa ka jirta wadankeena abaar aad u xun oo lagu qiyaasay abaarta u xumayd 60kii sano ee la soo dhaafay tii ugu xumayd waxaa la yiraahdaa 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa abaartaasi ay saameysay gaar ahaan 6 gobol ee ka jira koonfurta magaalada Muqdisho iyo xamar laftigeedaba oo ay ku soo jabeen dadkii koonfurta ka yimid 750,000 oo qof ayaa waxaa leeyahay waxay qarka u saaran yihiin inay gaajo u dhintaan sababtoo ah 750,000 kun oo qofina waa dadka ku hoos nool dhulka ay xukumaan shabaab abaartu marka wadankeena abaar waa ka dhici jirtay drought waxa la yiraahdaa waa jiri jirtay laakiin drought inay isu beddesho famine badana ma dhacdo abaartu marka Soomaaliya abaarteedu waxay ahaan jirtay abaar cyclical cycle waaga hore 10kii sanaba abaar baa dhici jirtay 65tii abaar baa dhacday 64 mareynaya 74tii 87tii 93tii laakiin hadda abaartu waxay noqotay يعني cycle keedu wuxuu noqday labadii sanaba abaar baa wadanka ka dhacda sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye waxa wadankeena waxa ku dhacay nabaad guur waanu shidanay geedihiinii baanu shidanay marka ma aha kaliya inaanu geedihii shidnay oo environmentkii aanu yani bi'adii aanu baabi'inay ka waran Soomaaliya oo la yiraahdo wadan desert ah weeye wadan semi arid macna waxa weeye wadan yani aan lahayn yani nabaad fiican oo haddana dhoofinaya dhuxul ma dhuxush inaanu isticmaalayno oo local consumption loo isticmaalayo haddana waxa weeye dhirta jarno ayaan dhoofinayna marka in abaar nagu dhacdo oo labadii sanaba ay abaar timaado waa wax runtii aan gacantan ku kasbanay weeye runtii taas weeye marka inay isu bedesho abaartu marka famine waxay ahayd runtii doqonnimo dhankeena Soomaalida iyo international community labadaba bishii January anigoo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah wasiirka ku-xigeen ayaan waxaan tagay Nairobi oo waxaan international community u sheegayay runtii in abaartu ay imaanayso marka abaartu hadda og tahay inay cyclical tahay oo ay soo noqonayso imaanayso waxa loo baahan yahay in aqli la yeesho oo farsamo la yimaado ah inaad leedahay waxa la yiraahdo contingency plans macnaha markay timaado inaad la dhil garayn karto abaartu adoo og been imaanayso marka inuu plan aad leedahay aad kaga hortagto laakiin anana ma aan lahayn dadka lacagta Soomaaliyeed loo dhiibo oo Nairobi joogana plan ay arintaas kaga hortagaan ma aysan lahayn taasaa keentay marka in abaarta isu bedesho gaajo famine waxa ka sii daray marka taas in xataa raashinka yimaada dadka aan la gaarsiin karin sababtoo ah in nimankii shaydaamada ay dhexda u fariisteen oo ay diideen dadka cunada in la gaarsiiyo suuq u sheegay walaalkay Cabdiraxmaan Xoosh annaga waqti xun baa abaarta lagu soo aaday
waqti kale guurkii dowladda ku soo aaday waqti waxay nagu soo aaday uu jiro badxiran oo dhaqaale aanan haysan qiyaasa markii badxiranku jiro budgetka dowladdu ay ku shaqayso waa $900,000 waa $1 milyan ka yar wey marka baddu furan tahayna waa $1 milyan iyo bar marka $1 milyan iyo 900,000 ilaa $1 milyan iyo bar ayaa la rabaa dowladdan inaad ku rangarayso taas iyadoo ay jirto ayaa haddana ay abaartu timid laakiin annagu waxaan isku daynay runtii waxay ka daran yihiin in aanu arrintaas isku dayn wax ka qabanno budgetkaas yarkaad aragteen oo $900,000 ah ayaanu $500,000 waxaan u allocate garaynay in abaarta laga qabto waxaa yeelay markii abaartu bilaabatay June bilowgeedii ayaa waxaan u yeeray hay'adaha caalamiga ah ee jooga xamar markaas waxaan ku yiri abaartaas jirta dhibaatadaas jirta waxaan rabaa ka qabataan UN-ka u badan waxay yiraahdeen igu jawaabeen waxaan sameynaynaa assessment marka assessment-ka aan sameeyno waxaan u diray Nairobi waxa u diraysaa New York wixii ka soo laabtay ka bacdi markaas aan dadka qiyaasayna xasinayna marka imis qof dhimanaysa in assessment la sameeyo Nairobi war loo diro New York ka soo jawaabto ka bacdina wax la marka taas aan ugu kaliftay marka aan dirahano inaan isku tashano weeye inaan sugin marka in dadkeenii ay cid kale ay mutaan isla markii waxaanu sameynay saa la socotaan hay'adda la yiraahdo maareynta musiibooyinka waxaan u dhiibnay dad kale civil society-ga naga waxaan ugu batay sida uu sheegay Ali Xareed waa ka hadli doonaa good governance ka corruption-ka in la yiraahdo dowladdu wax loo dhiibaba maaragtay meel daran bay maraan marka civil society organizations ayaan dad ka tirsan ayaanu u dhiibnay hay'adda si u maamulaan sababtoo ah waxa kale oo aanu ka fikirnay waxa weeye haddii ay jiraan maadaama arab dadka inaan gaarno dhulka qaarkiisna dowladdu aysan xukumin waxaanu isku daynay marka in civil society-ga iyo local NGOs-ka international NGOs-ku ay nooga fardhuudhuban yihiin inay meelaha tegi karaan taasaana kaliftay marka inaan ayaga niraahno hay'adda inkastoo hay'addu xafiiskayga hoos timaado haddana in iyagu ay maamulaan wixii dhaqaalaha yimaada dadkana ay gaarsiiyaan macaawinada waxaanu sameynay labadii xero u horeeyay soo la socotaan ayaanu xamar ka soo birnay waa xerada la yiraahdo badbaado oo hadda ay ku nool yihiin dad ka badan 30,000 oo qof iyo xerada la yiraahdo rajo oo sidoo kale ay ku nool yihiin dad ka badan sidoo kale iyana 30,000 oo qof marka runtii waxaan isku daynay marka inaan abaarta wax ka qabanno ka dowlad ahaan annagoo dhaqaalaha iyagu aad u liito aad garan kartaan waataan idin sheegay budgetka aan ku shaqeyno laakiin runtii dhibaato kastaaba markaad face garayso challenge kastaaba waxaa ka soo baxa opportunity marka waxaan rabaa opportunity-gaas inaan ka faa'iidaysano marka annaga runtii abaartu dhib bay geysatay welina dhib baa waddankii ka jira laakiin haddana opportunity baa ka timid oo ah waxaa weeye exposure caalami ah ayaanu helnay oo ah in adduunkii uu arkay dhibaatada Soomaaliya ka jirta uu arkay in loo baahan yahay markii yani dadka dhimanaya la arkay in adduunku soo gurmaday abiil baan soo binaanay madaxweynuhu ka bacdina runtii response-ka ka yimid adduunku aad buu u wanaagsanaa gaar ahaan wadamada islaamka ah iyo dowladda Mareykanka oo ahaydba dowladda u horeysay oo runtii noo soo jawaabtay Canada weli Canada weli waa sugaynaa xoogaa ilaa xad laakiin way soo socdo marmarinaya marka exposure baa laga helay oo ah waxaa dhacday for example waddankii hadda ilaahay markuu naga saaray nimanka shabaab oo u imaan doona dhanka security-ga in dad badan ay yimaadeen madaxweynayaal ay yimaadeen oo la socotaan oo prime minister Turkiga oo ilmihiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii wata ayaa yimid madaxweynaha Djibouti baa noo yimid wasiirkii arrimaha dibadda Iran baa yimid waxaa yimid princess baa yimid wasiiradii development-ka oo horumarinta wadamo badan oo ay ka mid tahay UK Holland Sweden Spain baa yimid waxaa noo yimid Under Secretary General-kii wixii ka hooseeyay Ban Ki-moon maahan wixii ka hooseeyay dhan oo kale waa ay noo yimaadeen
waxaa noo yimid wixii UN madax u ahaa oo dhan marka hadda waxaan dhahnaa waaga hore wasiir ku-xigeen baa inta noo yimaado baanu kulooya airboortka aadi jirnay hadda anagu airboor ma tagno iyagaa noo yimaado dhanka amniga saa ula socotaan walaalka cabdi xoosh waqti fiican buu ku soo aaday waqti shabaab ay tageen haddaan idiin sheego anu markaan tegay waddanka waxaan deganaa hotelaya saxafi waa garan soo marinaya number 4 ku yaalla marka maalin walba al-shabaabna waxay joogeen shaqaalaha hoostiisa haddaan u socdo madaxtooyada iyo prime ministerkana waa inaan jidkii marka maraba sii mara weeye marka waxaa lagu leeyahay hadda ha bixin yani 3 saac ka hor ha bixin sug waxaana caado noo ahaan jirta mararka qaarkood dagaalka laba waqti bayna soo weerari jireen waxayna soo weerari jireen salaada subax iyo salaada maghrib marka taas macnaheedu diiniya wax ku jira ma garan karo laakiin laba waqti waxay ahayd aan runtii aad u sii ilaalino waa experience-ka idin sheegaya la qabsaday waxaa dhacday maalin anoo quracanaya hoteelka dhexdiisa ayaa xabada waxay ka soo gashay dirishada marka hoteelku waa shub laakiin somehow waxa dirishadii bay soo martay nin Bashiir yahdo Bashiir Feerweyn ma aqaan dadkan yaqaan ba laga yaaba oo dhalinyaro u jooga bay waxa ka martay dhegta meeshaas korkeeda darbiga ku dhacday anoo halkan ku quracanaya gabdho ma quracanaya gabar la yiraahdo Faama Cabdullaahi Saaniye iyo hoosteeda baan u jeeday xabadii ee ku basbeesh marka cabdi xushuuxii anaga wadankii xoraho ee wanaagsan laakiin runtii taasi nama cabsi garinayn mana aan maaragtay waxaan ugu weer maaragtay committee baa waxaan ku ahayn in runtii arrintaas nabadgelyada wax laga qabto wax badan baa iska bedelay waa la socotaan runtii shabaab faataxa kuma bixine xoog bay ku bixeen marka muddana waxaa ku socday dagaal xun baa ku socday waa la socotaanoo waxaa jiray dagaal muddo socday oo ay ciidamada amisom iyo ciidamadeenu ay muddo wadeen dagaalka lagu qabsaday waa xasuusataan lagu qabsaday xukuumadda Seerjito gaashaandhigga waxaa ku dhintay 53 Burundiyankii ciidamadii Burundiyanka 53 ku dhimatay ciidamo badan oo Soomaaliya ku dhintay ayagana jabkooda meesha ka bilowday ay ahayd ay ugu dambeyntiina ay kaga bixeen xamar laakiin ka bixitaankoodu fursadna waa ahaa challenge-na waa sida uu sheegay Cabdiraxmaan Xoosh challenge-ku waxa weeye markay meesha ay ka baxeen annagu waxaan idin marka maxaan suubinaa waxaan 3 xiyaabood in la suubiyo qasab bay ahayd tan koowaad waxa weeye markay baxeen meesha ay ka baxeen in amaankeeda la sugo runtii waxaan la sii warahayn markaas waagaas waxaa noo socda waxa la yiraahdo Mogadishu Stabilization Plan oo hore loo sameeyay oo ay naga caawiyeen United Nations Development Programku oo ahaa hadiiba ay opportunity-gaas timaado soo wajahayna marka waxay ahayd tan koowaad in dhulkii la stabilize gareeyo oo la nabadeeyo in biliiskii la geeyo in maxkamadihii la geeyo in miinooyinkii ay ka tageen laga saaro soo marka meesha in nabadgelyo noqoto si dadku uga soo laaban karaan tan labaad oo ku xigtaana waxay ahayd in maamulkii la sameeyo oo yani district commissionerskii iyo in maamulkii dowliga ahaa si uusan vacuum u abuurmin nimanbaa meesha haystay oo ka baxeene in ayana maamulkii dib loo soo celiyo lagana ilaaliyo in sida uu sheegay nimanka warlordska ahaa aysan dib u soo laaban waa la socotaan oo xataa in qaarkood ay yiraahdeen isla markiiba ay yiraahdeen anaga meelba qabsanay iyo anaga meelna loo xilsaaray taasaana keentay inaan go'aan ka soo saarno ah inaan warlord dambe uusan ugu soo laaban anaga kabacdina in la isku dayo dib badan baa ka jirtay gaajo badan baa ka jirtay xamar runtii waxaa dhacday magaalada xamar waxaa ku nool ilaa 400 oo kun oo dadka la yiraahdo IDPs-ka internal displaced people wixii abaara dhacayay dadkii xooluhu dhaafayeen mar walba waxay imaanayeen
ama xamar bay imaanayeen ama magaalooyinka kale oo ilaa Puntland iyo ilaa bay aadayeen marka dibta abaartu ay leedahay waxa weeye ma aha iyo macluush hadda jirta inaad hadda la dhilgaraynayso dadkan xooluhu dhaafeen hadda in la quudiyo dadka xoolihii waa dhaafeen marka waa in la lahaado la yimaado balaan ah waqtiga dhexe iyo waqtiga dheer marka dadkan waa inaad u abuurtaa alternative livelihood sababtoo ah xoolihii waa dhaafeen haddii kale waxay noqonayaan IDPs forever internally displaced people bay noqonayaan marka hadda waxyaabaha maalan anigu aan kala hadlo international community waxa weeye waxay arkaan iyagu middan immediate-ka oo gaajadan muuqata laakiin waxa ka daran waxa weeye gaajadani haddii dadka ay dhibaato saameysay aan wax laga qaban kuwa beeraha wax laga yaabaa oo beerahooda inay ku laaban karaan haddii xabuubkii iyo seriiskii la siiyo laakiin kuwa xoolo dhaqatada xoolihii dhaafeen waxay u baahan yihiin in loo sameeyo waxaan kala rabaa inaan ka hadlo dhanka nabadgelyada kole road mapka ayaan waxyar ka oran doonaa waxaanu leenahay waxa la yidhahdo national security stabilization plan raggii sameeyeen oo saa sheegteen waxaa ka mid ah cabdiraxmaan sheekh ciise halkan la jooga oo ah waddanka sidii loo nabadayn lahaa xamarna looga saari lahaa iyo centerkana looga saari lahaa nimankan waddanka haysta periphery waxa la yidhahdo peripheral approach bannaankana looga soo saari lahaa oo sida hadda maalan gado oo kale waa laga soo saaray ilaa laga reebo magaalada la yidhahdo baar dheere sidoo kale dhanka jubbooyinka marka ultimately waxaan rajaynayaa waqti aan dheerayn there will be no more shabaab in Somalia haddii ilaha yidhahdo waxaan rabaa inaan ka hadlo marka shirki u dambeeyey oo la yiraahdo consultative meeting shirki waa tashiga Soomaaliyeed runtii shirkaasi wuxuu ahaa shir muhiim ah sababtoo ah wuxuu ahaa shirki u horeeyay oo aan oran karno Soomaali nooc walba ay tahayba ilaa xad yani oran karo kulli way u yimaadeen laakiin dood goboleedyadii iyo dawladdii iyo Somali stakeholders dadka la yiraahdaa inay xamar intay isugu yimaadaan 3 bari gudahood road mapka aad aragteen road map ma akhrisateen haddii aan akhrisan hadda akhristaan doorla marka mustaqbalkeena inay ku heshiiyaan 3 bari gudahood oo waliba ay ku heshiiyaan shaqo aad u dhib badan oo ay tahay in la fuliyo shaqo marka waxaan isleeyahay waa la socotaan in bagaatan waxay qaadatay in wax laga soo saaro 2 sano iyo xoogaa marka Soomaaliya isu timid 3 bari gudahood go'aan ku gaartay oo iyagoo heesiyo gacmaha haysta inay ku kala tagaan oo road map ku heshiiyaan runtii waxay ahayd wax aad u wanaagsan cidina ay isfilaan dhacdo nimankan jecel wax fiir Soomaaliya waxa ka abuurmay industry Nairobi joogta oo runtii aan raalli ka ahayn Soomaaliya wax ka dhacaan marka they were very dismissive maxay la qaban karaa ma suurtagelayso laakiin annaga way naga go'onayd in uu shirkaas u dhaco si wanaagsan ku dhamaado taasaana keentay anigu inaan maalan Puntland aado madaxweynuhu yimaado aan galmudug tago runtii waxaan rabnay in uu qabsoomo si wanaagsan u qabsoomo wax wanaagsan oo Soomaaliya uga soo baxaan insha Allahna waa ay ka soo baxaan arinta constitutionka waxa aad uga hadlay Cabdiraxmaan Xoosh waxaan u baahanahay runtii waxa la yiraahdaa dawladnimadu constitution oo imaan doonay it's all about institutions waa haykal dawladnimo inuu jiro weeye markaad institution leedahay ayaa dawladnimo aad heli kartaa waddanka horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa yani kuma xirna macdan kuma xirna petrol kuma xirna wadamada adduunka u qanisani waa Afrika weeye waddan ka hodansan Zaire ma jiro sanadkiina waxay soo saartaa $12 bilyan way GDP-geedu Hong Kong oo hal magaalo ahna waxay soo saartaa $296 bilyan sanadkii marka difference waxa weeye waa human capitalka aqoonta iyo garashada iyo institutionska marka dad wax bartay oo wanaagsan leedahay good institutionsna aad leedahay markaas horumar gaari kartaa basic institutionka ugu horeeyo yani waddan yeeshaana waa constitutionka wey
ولا سعوتان هذا واحد شراء قبل قرآن المدأة لكن وحبا كدمر وحبا ما كدمر وحرمنا أنه constitution أكو مرد جرينا يا دين تاني أول شريعة الله وحنوبة هنا constitution أكو مرد جرينا يا وبوس أهلية Somali customer اللو dhaqankeena iyo xeerkeena waxaan u baahannahay constitution human rights constitution xuquuqda dumarka for example oo kale ilaalinayo marka expertna waxay sanaa the best and the brightest marka shaqo fiican baa laga rabaa arrinta reconciliation-ka taasaan kaga baxayaa iyo political outreach-ka political outreach-ku waa very important waxay ka mid tahay road map-ka in la gaaro gobolladii in dowlad goboleedyadii ee la isku soo xiro dowladdii way ka mid tahay waana taan idin sheegayo aniguna antay garoowe kabacdi madaxweynaha yimid kabacdi anigu waxaan usoo gudbay mudug iyo galmudug laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ka ilaahdo dowlad goboleedka sida dadku u fahmeen iyo sida ay tahay ama federalism waxa la yiraahdo sida dadku u fahmeen iyo sida ay tahay wala socotaan hadda Soomaaliya waxa la yiraahdaa waxay leedahay 18 gobol iyo 23 madaxweyne marka all kinds oo waxa maqashaan dowlad goboleed daangiya cambuulo maxaa la yiraahdaa cadi caano oo yani magaca doonto u bix oodka ma jira mid Everland Mustafa Dhuxoos Everland marka federalismku waa concept wanaagsan weeye haddii iyo regionalismku yani regional administrationsku haddii sida tahay loogu dhaqmo waad la socotaan oo hadda waddankan Canada iyo Mareykan labaduba waa federal states weeye marka federalismku muxuu yahay conceptual macnaheedu maxay tahay waxa weeye dowladdu waxana waa tartaa dadka waxana waa dhintaa marka federalismku wuxuu macnaheedu basigiisu si dowladdu maadaama ay tahay the government is the only entity that has monopoly power on violence dowladdu waxbay qofka yeeli kartaa marka si looga badbaado dowladdu inaysan qofka wax yeelin ayaa waxa la rabaa powerku inuusan qof shakhsi gobol inuusan gacanta u gelin that's why marka la yiraahdo powerka dowladda waa in la qaybiyaa the power of the state should be horizontally divided ana waxa weeye waan maqashaa waxa leenahay legislative executive iyo judiciary sharci dejinta executive-ka iyo maxkamadda marka haddana waxaa la yidhi taasina that's not good enough the power of the state should also be vertically divided dowladda marka powerkeedana waa in la qaybiyaa si simana loo qaybiyaa si vertical loo qaybiyaa uu jira federal state iyo local intaasu maxay tahay waxaa looga jeedaa marka in cid kaliya shakhsi kaliya qof kaliya gobol kaliya uusan awood gaar yeelan si loo ilaaliyo sharafta iyo karaamada qofka individualka the sovereignty of the individual marka waxa loo baahan yahay marka in loo fahmo macnaha sida ay tahay aysan ahayn in ama xukun lagu raadsado ama madaxweyne lagu noqdo taa macnaha ma aha macnaha federalismku iyo regional administrationsku waxaan rabaa marka wax yar inaan ka ilaahdo waxa la yiraahdo road map noogu qoran oo la yiraahdo good governance dowladnimo wanaag dowladnimo wanaagu waa saan sheegnayo waa inaad leedahay good institutions saan idiin sheegay budgetka waxa ugu horreeya waxa weeye cali xareedna uu ka hadlay wuxuu yidhi soomaalidii waxay noqotay corruption miran ana waxaan leeyahay Soomaaliya wax corruption oo badan oo waddanka ka jira ma jiraan runtii sababta idiin sheegaya budgetka iyagu annaga waa milyan iyo barkaas ayaan waxaan ka bixinaa mushaarka baarlamaanka cali xareed iyo raggiis 550 weeye kiiba $900 baan siinaa milyan iyo barkaas ayaanu ka bixinaa mushaarka shaqaalaha milyan iyo barkaas ayaanu ka bixinaa raashinka ciidamada mushaarka dowladda nala bixiya laakiin raashinka ciidamada anaga bixina marka haddana waxaa leeyahay maalin walba the most corrupted country in the world niman leeyahay waxaan leeyahay Transparency International waa taqaan marinaya marka waa ayaga nimanka waxa weeye waxay sameeyaan waxa leeyahay corruption perception index
marka Soomaaliya ma yimaadaan data kama qaadaan haddana waxa la yiraahdaa mar walba waa the most corrupted country in the world marka laakiin in corruption kala yareeyo oo dawladnimo wanaag la muujiyo waa wax very important weeye marka hadda road mapka noogu jira road map ma aha political programkii baarlamaanka aan ka ansixinay ayaa waxa noogu jira inaan suubino anti corruption task force hadda documentiga waa noo dhamaaday rag experts oo Soomaali ah oo qurbajoog naga caawiyay waana horgeynaa baarlamaanka sidoo kale waxaan suubinaynaa wax la yiraahdo financial integrity board iyadoo ka duwan tahay hal ujeedana kalena waxa weeye lacag ka badan $1 billion sanadkii ayaa waxa lagu bixiyaa magaca Soomaaliya $1 billion kaasi marka meel aad ma naqaan iskuul lagama dhiso isbitaal lagama suubiyo jidad lagama suubiyo magaca Soomaaliya ku baxdaa marka mana dhaafto meelaha qaarkood iyo caasimadaha qaarkood marka financial integrity board waxaan ku talagalnay inay ka mid noqdaan donoriska la yiraahdo lacagta dhiiba iyo hay'adaha leeyahay implementing agencies-ka waxa weeye donorisku lacagta waxay mariyaan hay'ado maadaama dawladda Soomaaliya aan lacag toos loo siin marka waxaan rabnaa donoriski iyo implementing agencies-ki inay ka mid noqdaan financial integrity board-ka sababtu waxa weeye waxaan rabnaa ayana in nala ogaadaan milyan iyo barkaasi meesha maro aan ka helo dekada airport-ka ayana aan ogaano $1 billion meesha ay geeyaan marka transparency waa rabnaa accountability waa rabnaa we will be accountable first and accountable to Somali people dadka Soomaali noqono and transparent iyo accountable na u noqono international community iyo donoriska Soomaaliya wax siiya laakiin annaga waxaan rabnaa sidoo kale in mutual tahay they have to be transparent with us and they have to be accountable with us to us marka waxaan rabaa xiraan ka iraahdo ku soo gabagabeeyay hadalkayga diaspora marka Soomaali diaspora anu diaspora ka mid ahay idinka idin la mid ahay maxaan qaban karnaa dhalinyaradeena waad maqlayseen tan koowaad waxa weeye wadan saan idin sheegay horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay aqoontiisa iyo human capitalkiisa wadanka human capitalkiisina dabaduu jira gudaha ma jiro aqoon dabada jirta marka haddii security wax iska bedelaan runtii wax badan baa iska bedelay waxaan xasuustaa markii xamar hadda aan ka soo baxo hotelka Saxafi aan u socdo madaxtooyada aad jidka marto waxa arkaysaa saruusay u burbureen iyo dhibta ka dhacday wadanka gaar ahaan caasimadda laakiin burburkaas waxa kaaga dhex muuqanaya sidoo kale waxa burburay ma aha kaliya darbiyada also waxa burburay maskaxdii iyo dadkii laftigooda waa burbureen dhibaatada wadanka jirta awgeed laakiin haddana Soomaalidu waxa weeye waa dad resilient ah weeye runtii oo aad u hal adag sababtoo hadda intii yar shaab naga maqnaa waxaan la yaabay isla markiiba xataa jidkiisu isu bedelay dadku isla markiiba isbedel ka dhacay yani sida isla markiiba ay isugu dayeen in ay dib u soo nooleeyaan marka waxa la idinka baahan waxa weeye human capitalka dibadda jira haddii aan la laabanna in badan waxa oran jiray ana oran jiray ma laabanayo sababtu waxa weeye waxaan oran jiray haddii ilaa cunugayga yarkaahi 7 jir baan mahaygu yaro jaamacad ka baxana Mareykanka ma tagi karo markii soo jaamacad ka baxana aniga ama dhakhtar ka dheeraan karin agtiisa marka waxbarasho fiican waan keenaynaa Soomaaliya dhakhaatiir fiican waan keenaynaa soo laabta marka marka tan kale waxa weeye in aan Soomaalidu ay lahaato unity waxa la yiraahdo midnimo believe me qoys kale iyo reer kale iyo gobol kale iyo degmo kale iyo dawladnimada ma keeni karto qarnimada ma keeni karto runtaas weeye marka in laga shaqeeyo midnimo tan kale waxa weeye in the advocates saa walba u haydeen Soomaaliya Soomaaliya waxay ku nooshahay
waxaa weeye dadka qurbaha jooga dhaqaalahaan waad la socotaanoo macaawanada aan helno waxaa ka badan remittanska lacagta waddanka lagu celiyo marka dowr fiican oo nadiif sharaf leh ayaa diasporada ku leedahay laakiin in lagu daro advocacy iyo waddanka dib loogu laabto dhaqaale la geliyo waxbarashada iyo aqoontina la celiyo toban dambeysana waxaa weeye dee inaanu korino generations wanaagsan kuwii hadda dhallinyarada aan u jeedno Nawaali iyo Cabdinaasir iyo raggiisii inaanu korino future mustaqbal Soomaaliya aan noqonin hadde second generation Americans iyo second generation Canadians aysan ama santeen شرفكو هاغوغاني عيداد واغضا عدكو هاقفشو وهاليلغيو روينكو إرماني عدكو هيرا هيسيدي هيباد وحاد كل ضهي لكاغا هويو هيباد وحاد كل ضهي لكاغا هويو وانا لما هراني حقر لي وحوقو خبو وانا لما هراني حقر لي وحوقو خبو tahay gabagabadii daawadayaal waad ku maasantiin daawashada barnaamijka ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisaba waxaan uga tegaynaa nin lagu seexdo ha seexan xilbaa sidaa seexan soo jeedo si weyn u feejignow dadweynaha Soomaalidana waxaan uga tegaynaa hawlka madaalooyinow ciddii wali waa hayaan magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan iyo Cali Bakri Sheekh bin Sheekh oo idin leh waad ku maasantiin daawashada nabadgelyo amaana Allah nooli kulante